بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كيني ما كوشرنا تحنهنا ها ان كسميني داتابيس كا في بيدات كسميني وضد يرا قابنا كسميني waxaan ku soo kordhinay halkan text box aan u bixinay text box ID baan u bixinay. marka kan waxaan doonaynaa ID-gan aan ku save gareyno si aan marka edit gareyno. edit-kii wuxuu dhacayaa markaan gujino grade view-ga markaan gujino ay datadan u baahanayno imanaysaa text-adan u baahanahay ama meelahan u baahanan ku buuxino anuu qorsheynay ku buuxsamaan datada ay ku buuxsamaysaa kadib xaggaasan ka edit gareynaya kadib waxaan leenahay save ayaan leenahay. kan xaggan inoogu keen marka horeysa imika waxaan eegaynaa daatadeena halkan nagu jirtaa videogeena waxaan ku eegaynaa data halkan nagu jirtaa sidaan u keeni kareynaa text box-ka labadan text box nagu buuxin kareynaa. waxaan sameynaynaa double click baan siinaynaa data grid view-ga waxaan dooranaynaa cell xaggan waxaan ka dooranaynaa u fiirso inagoo dhex joogna event-kii data grid view-ga halkan waa ka data grid view 1 baa kugu qoran ayaa marka halkan ka dooranaynaa waxaan leenahay cell click kan kale iskama sax markaasaan qoraynaa waxaan leenahay dim bos b2s afwan ama waxaad u bixin karaysaa bws bos I baad u bixin karaysaa waxaad u bixin karaysaa as integer weliba equal wuxuu leeyahay markaa wuxuu leeyahay data grid view data figure one current row dot indexkiisa rowgan doonayna aan joogno ama aan gujino ayaan doonaa indexkiisa inoo soo qabto. waxaan sameynaynaa markaa u fiirso waxaan leenahay mst box waxaan leenahay markaa bos inoo soo guji ka inoo sii muxuu inoo sii number 9 buu inoo siiyey ka inoo guji waa number 3 una fiirso kana waa 3 kana waa 4 sababtu waa maxay kaawanka ayaa 0 ah 0 buu kasoo bilaabaya way taa markaan joognaa saas markaan nidhi iskama sax waxaan leenahay hadda maxaa odhanaynaa markaa do action ka markaan idhaahno kadib waxaan dooranaynaa markaa maxay select data grid view bws oo marka waxaan doonaynaa numberkan doonaynaa xaggan number 0 buu ku buuxinayaa mar 1 buu ku buuxinayaa waaye kaa markaan haysano waxaan leenahay wuxuu data ka soo qabanaya data grid view buu ka soo qabanaya datada ka soo qabsanaya waxaana waliba uu ku buuxinayaana text waxaa naga maqan markaa numberka datada uu soo qabsanayo failkana uu soo qabsanayo numberkiisa naga maqan xagana ku buuxinayna isaga waxaan leenahay waa 0 maxaan uga jeednaa waxaan doonaynaa godka la yidhaahdo data soo furno ran baan leenahay kaas ID-gu waa 0 username-kuna waa 1 ka ID-gu gebigiisuba waa 0 waxaasoo dhan ID-gaasaan sheegaynaa godka ID la yidhahdo waa 0 username-na wuxuu noqonayaa 1 buu noqonaya midka haddaan kusoo daro 2 buu noqonaya saasuu ku soconaya. ID-ga laftigiisa ama rowga columnada midna waa column midna waa row columnku wuxuu noqonayaa 0 buu ka bilaabmaya oo kana 0 kana waa 2 waa 1 baan leeyahay rowgana laftigiisa 0 buu ka bilaabmaya oo ka imika number 1 ku qoran waa 1 weeyaan waa 0 kana waa 2 saasay noqonaysaa. imika haddaan gujino waxaad arkaysaa marka inoo buuxiyay number 1 halkan inoo keenay haddaan kaa gujino muxuu inoo keenay 7 inoo keenaya kaa inoo guji muxuu inoo keenaya kaasuu inoo keenaya. marka maxaan leenahay waxaan doonaynaa inaan taa markaan sameynay kan bay noo qoray hadda doontidne ama waxaad odhanaysaaba feasible enable baan xagga keena waxaan leenahay marka enable-kii noo ka dhig false ka dhig yani waxba kama bedeli kara laakiin isagu daatadiisii caadi uu soo dhigay laakiin anigu wixii aan control lahaa ma bedeli lahaa ma bedeli karin ma saxi karayo waaye taasi waa qodobka labaad waxa weeyaan marka waxaan doonaynaa isna kan oo kale inoo keen laakiin waa masaxaynaa number 1 baan ka dhigaynaa kana waxaan ka dhigaynaa
txt path maxay noqonaysaa marka inoo soo noqo bal guji cali buu halkan ku buuxiyey xagana tiriyey kana guji nuur iyo number 7 kana gujiri kana guji kana saas u fiirsa marka u horeysa si aan datadeena u helno updating u helno waan helnaa numberka waan helnaa wixii where waad garanaysaa database-ka marka la isticmaalayo update la sameynayo update fiilkaas aad dabal garanaysaa waxaad ku set garanaysaa textbookskaas aad ku set garanaysaa where datadaasi marka where-kii baan ka dhigaynaa id-ga datadeena update gelina maxaan ka dhigaynaa xaggan geeninaa xaggan kasoo ku bedelinaa waxaan ku bedelinaa kan maxay ahayd la yidhaahdo textbookska path aan kusoo bedelinaa saas ka faa'iidaysi wacan iyo cashirkeena dambe iyo maxamuud xuseen cabdi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu